dhacdooyinan eegno isku diraagu uu sameeyey walaalayaal waxa jira horta Soomaalidu waxay ku maahmaahan bohol hadimaha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doonteen mooyee ninka isku diraagi ihi hogga uu qoday isagu baa ku dhaca inta badan isagu baa ku dhaca ibn Hajar al-Haytami kitaabkiisa la yiraahdo az-Zawajir 'an al-kaba'ir mujalladka dambe wuxuu ku soo qaatay nin muslim ahaa oo miskiin daacada ahaa oo wadaadahay oo Ilaahay diinta baray oo ninkii dalka haystay markuu arkay wanaagiisa uu yiri warniyo baladila taliiside adiina seexayside balii kaalay mararka qaar wuxuu arkay albaabkii madaxweynaha oo ninkan u furan oo ninkani uu galayo uu ka soo baxayo wuxuu yiri ninka iyo madaxweynaha sidaad isku dirtaa ninkii boqorka ahaa buu tagay wuxuu yiri boqorow ninkan ku yimaada markuu ka soo baxo adigu buu ku caayaa markii uu dambeysay ayda uu maalmahan dambe sheegi jiray waxay ahayd boqorku nin nadaafad leh ma aha cabaygaba ma yaqaan haddaad ag fadhiisato urta ka soo baxaysa afkiisa u adkaysan kari maysid nin cabaydaba ma aha boqorku saasoo hadda dadka ku yidhaahdaayo boqor uu saasoo ku caayaa buu yidhi bal adiguba waad hubin doontaaye warkaa ila hubi buu yidhi saasoo kugu caayaaye boqorkii baa yidhi anaa hubinaya iska tag ninkii ayaa ka soo baxay isku diraaga ahaa wixii isiri si uu boqorku ku rumaysto ninkan u tago waxa tira maanta martibaad ii tahay ninkii buu yeeray wadaadka markaas uu walaal anaa ku marti qaaday namaamkii baa marti qaadaya anaa ku marti qaaday ii kaalay buu gurigayga cunto wuxuu sameeyay wada toon ah oo tooni ay ka buuxdo toontana walibana lama karinin toontii oo sideedii ayuu cuntada ugu sameeyay walibana aad ugu badiyay wuxuu yiri waa dawe sheekh waxa weey waxaan kula talinayaa baasha faa'iido badan baan ka helay inaad si fiican u cunto cuntadii buu soo hordhigo toontii buu ka dhargay boqorkii baa u yeeray oo la soo hadlay oo yiri ii kaalay ninkii baa boqorka u tagay uu ka yara durkay ilayn toon buu soo cunaye uu ka yara durkayo imaamadana afku saaray isagoo isla boqorka ha dhibin oo toontaadan bal isku day inaad ka celiso boqorkii baa nin wax loo sheegay buu ahaa isna wax buu eegayaa uu qiimeynayaa wuxuu arkay inuu ninkani wax u diidan yahay waxa boqorku wuu rumaystay inuu ninkani caydii la sheegayay iyo dacaayadiiba inuu ka sameeyay dil baa lagu xukumay ninkii qoladii albaabka joogtaa loo yeeray waraaq baa loo qoray waxa la yiri ninka u dhiiba halkan yaan lagu dilin ilaa magaalada waa laga garanayaa magaalo heblaayo ha tago waa waraaq jeegana lacag un baa bangiyada lagaga qaadan jiray muslimiinta jeega ula tagbaalay min hebel oo lacag ka soo qaado waraaqdii buu soo qaatay ninkii wadaadka ahaa boqorkii ka soo qaatay namaamkii kama foga gurigan lagu shirayo ee boqortooyada sida ninka loo galo ayuu daawanayaa dibaddu jooga meelan ka dheerayn buu ka arkayaa wadaadkii markuu soo baxay ayuu namaamkii ku soo cararay war boqorkii maanta muxuu ku yiri buu yiri bal iska waran wuxuu jeeg buu isoo siiyeeyo wadan heblaaye buu yiri lacag u doono namaamkii baa ku dhegdhegay markaas yiri walaal anaa baahan anaa duruufaysan anay baahi badan i haysa jeega aniga isii buu yiri ninkii wadaadka markuu ku dhegdhegay jeegii wuu siiyeeyo uu u dhiibay wadaadkii gurigiisii buu iska tagay ninkiina jeega lama furo hadii la furo wuxuu noqonayaa wax lagu qaatay waxa gudaha ugu qoran ninka bangiga lagu yiri kaga qaado baa furaya oo akhriyay oo kolka ku siinaya jeegii buu qaatay ninkii isku diraaga ahaa wadaadkiina gurigiisii buu joogaa gobolkii loo diray buu la tagay waraaqdii baa la furay dil baa ku soo baxay baa lagu yiri kaali waa lagu dilayaa jeega anigu ma lahayn buu yiri meeytaasi annaga nooma taalo ninka jeega sita baa kiiska lagu qaadaya baa la yiri horta ninkii namaamkaasi baa lagu dilay wadaadkii baa ku soo noqday ninkii boqorka ahaa boqorkii baa yaabay wuxuu ku yiri warsoonigii shalay jeeg ku qoray xagee tagteed ka timid wuxuu yiri nin hebel la yiraahdo oo dibadda igu sugayay ayaa jeega igaga dhigay oo isagaan siiyay markaasuu boqorku ogaaday inuu ninkanina daacad yahay ninkan jeega qaatayna ay wax de ilaahay waxba kama qarsoona oo nin shirqool maleegayay inuu ahaa ayuu ogaaday bal ii waran buu yiri maalintii aad ii timid waad iga fogeyd afkana waad isaysay maxaa jiray wuxuu yiri ninka hebela ayaa qada ii sameeyay wada toona kolka adiga ayaan kaaga baqayay buu yiri boqorow boqorku
sidii ayuu ku ogaaday oo wuxuu yidhi ilaahay waxba kama qarsoona qofka waxa uu geysto ama adduunyada ha ku helo ama aakhiraha lagu simee wuu helayaa qofka waxa uu dhigto waa beerad beeratay beerta aad beeratayna marun baad goosan doontaa waa dhacdo runtii xaqiiqo ah oo jirta oo namaamka qusaysa weeye dhacdo labaad ayaa jirtay waxaa jiray nin namaam ah oo isku diraa ah addoonna wuu ahaa addoommada waa la iibin jiray marka ceeb waa la iibin jiray oo sayladay lahaan jireen kii lahaabaa iska iibi is yidhi oo saylada geeyey muslimiintuna ma qariyaan ceebta haddaad gaari iibinayso waa inaad sheegto daxalkiisa iyo ceebtiisa iyo dhaliishiisa waxaad og tahay waa inaad sheegtaa saylada markuu geeyey namaamkii waa nin addoon oo aada u xoog badan waa nin welibana tima adag addoommada waxa ugu qaalisanaa kuwa timaha adag waayo degta waxay ku qaadaan way ka badnaan jireen dadka kale waxa ay qaadaan way ka adkaysi badnaayeen ninkii addoonka ahaa saylada marka la geeyey addoon wax alla wixii lagu jeclaysanayeyna uu ninkani ku tilmaanaa ayuu qiimihii jabiyey kii lahaa maxaad u jabisay baa la yidhi waa addoon la jecel yihe wuxuu yidhi waxaan u jabiyey waa isku diraayo ceebtaasaan leeyahay ayaan dadka inaan u sheego ka ku gelayaa markaa ha ku qaato nin baa yidhi aniga waabad ii sheegtay inuu isku diraa yahay hadal uu ii keenaba rumaysan maayo waanan qaadanayaa buu yidhi sidaa igaga iibi sidii buu ku iibsaday war alla warkuu u keenaba dee waan ku aqaanaa unbuu odhan jiray oo warkaa ma rumaysan jirin ninkii markuu qaatay uu iibsaday addoonka ahaa ee isku diraaga ahaa ayuu isku diraagii islaantiisii u tegey ninkan soo iibsaday islaantiisii wuxuu yidhi heblaayoy odaygu wuu kula guursanayaaye warkaa ma haysaa waxaa jira dumarka meelo aan lagaba marin ayaa jirta gabadhii way soo joogsatay oo waxay tidhi maxaa tidhi inuu kula guursaduu doonayaaye ma og tahay buu yidhi odaygaagu maxaad og tahay bay tidhi way u soo joogsatay wuxuu yidhi qadiyad baan kuu sheegaya una weligaa kula guursanaynin haddaad samayso waa maxay bay ku tidhi oo wuxuu ku yidhi markuu caawa seexdo 3 timood gadhkiisa iiga soo ogo ma aha buu yidhi madaxa waa gadhka buu yidhi halkaa gadhka 3 tin iiga soo ogo haddaad 3 timood oo gadhkiisa aad ii keento weligaa noloshaada kula guursan maayo buu yidhi ninkaas gabadhi welibana caawa ii keen buu yidhi caawa habeen dambe ma rabo caawaan rabaa buu yidhi inaad ii keento gabadhi waxay tidhi waan samayni waan kuu keeni 3 timood midi ayay si fiican u afaysatay si una u dareemin markay ku goynaysa gadhkan aayar ay ugaga jarto odaygii buu u tegay oo wuxuu yidhi gabadhu inay caawa ku gowracday inay doonayso ma la socotaa warkaaga buu ku yidhi caawa inay ku dishay doonaysaaye war waan ku garanayaaye iska teg buu yidhi may xaaji buu anu adaan kuu digayahay oon ku jeclahaye bal sidii wax seexanaya iska dhigoo khuuri adoo soo jeeda buu yidhi ninkii waan eegaya warkaaga buu yidhi odaygii markuu sariirtii tegey isagoon gam'in ilaan waxbuu baadhayaaye ayuu iska dhigay wax hurda gabadhii markay khuuradii odayga maqashay ayay mididii la soo baxday xaggiisa markay kula soo dhaqaaqday ay welibana gadhkii u dhowdahay ayuu arkay gabadhii oo midida sidatiya warkii loo sheegay ayuu ku soo booday oo isqabqabsigii ayuu mididii ka xoogay intuu ka xoogayeyna gabadhii bay sii martay oo gabadhii halkii bay ku dhimatay namaamku horta wuxuu sameeyaa waa taa